bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha warka oo anigoo cabdinaasir socdaal aan idinka soo gudbiyay magaalada Kampala ee wadanka Uganda. Tababaraha naadiga Man United David Moyes ayaa qirtay inay jirto cabsi la socota inuu bedelay tababarihii ugu guulaha badnaa taariikhda kubadda cagta Britain. isagoo u hadlayay wargeysyada Moyes ayaa ka hadlay sida uu ugu faraxsan yahay waxa soo socda, laakiin waxa uu sidoo kale aqbalay xaaladda runta ee xilligan ka jirta naadiga wadanka Ingiriiska ka dhisan ee Man United. It's daunting, but you have to take it on. I'm going to try and take the challenge up. He's leaving me a brilliant team. I hope to continue to build on it. Tababaraha naadiga Man United ayaa ku celiyay inuu doonayo inuu talo weydiisto Ferguson, laakiin waxa uu sidoo kale uu ka warqabay inay tahay inuu ka baxo hooska Sir Alex Ferguson haddii uu doonayo inuu gaaro guulaha naadiga Man United. isla Man United ayaana ku guda jirnaa ciyaaryahanka Robin van Persie ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in naadigiisa Man United xilligan ay baahi weyn ay u qabto inay ku guuleysato horyaalka wadanka Ingiriiska ee xagaagan soo socda la ciyaarayo. Red Devils ayaana Premier League xilli ciyaareedkii hore waxaana uu ahaa xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee Van Persie uu ku qaado Old Trafford kadib markii uu ka soo wareegay naadiga Arsenal. go-aankii uu xidiga reer Holland uga soo tagay Arsenal ayaa ahayd inuu koob qaado kahor inta uusan ciyaaraha ka fadhiisan, laakiin waxa uu doonaya haatan inay laba jibaaraan guulaha naadiga Man United ay ka gaarayso horyaalka wadanka Ingiriiska. warar soo baxay dhawaanaya waxa ay sheegayaan in tababaraha cusub ee naadiga Real Madrid Carlo Ancelotti uu doonayo inuu soo xirogeliyo weeraryahanka quwadda leh ninka loo yaqaan Zlatan Ibrahimovic naadiga Real Madrid ee ka dhisan wadanka Spain. waxaana tababaraha uu xilligan uu shaaca ka qaaday inuu markaa uu doonayo ciyaaryahanka Zlatan Ibrahimovic isagoo u arkaya inuu qayb weyn ka qaadanayo guulaha iminka naadigaasi ay ku talaabsan doonto sida uu xusay tababaraha naadiga Real Madrid. ugu dambeyntiina Gerardo Tata Martino ayaa si rasmi ah loogu magacaabay macalinka cusub ee naadiga Barcelona. tababaraha reer Argentina ayaa saxiixaya heshiis 2 sano oo ku hogaaminayo kooxda wadanka Spain ka dhisan ee Barcelona. tababarihii hore ee Newell's Old Boys ayaa imaan doona kooxda reer Catalan isagoo hore usoo kaxeynaya caawiyaashiisa ciyaartooy markaasi uu ku lahaa garoonka naadiga wadankaasi. macalinka hore ee Paraguay ayaa bedeli doona Tito Villanova oo isaga degay shaqada tababare ee Barcelona maadaama xaaladiisa caafimaad aysan saamixin inuu markaasi uu shaqada u sii wato. gudahaan xubintii ciyaaraha warka oo anigoo Cabdinaasir Socdaal magaalada Kampala idinka soo jeedinayay inta ayaan ku hakinayaa, waxaan idinkaga tagayaa sports horumar leh iyo dalkii